بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين halkan waxaan ka gelaynaa casharkii lixaad ee tafsiirka quraanka kariimka ee suuratul baqara waxaan ku soo jirnay nicmooyinkii bini aadanka cumuumkiisa ilaahay u galay oo ay ka mid ahayd oo ugu dambayso ay noo socotay nabi aadam nicmooyinkii ilaahay siiyey ambiyada malaa'igtii uu ka fadilay u sujuudiyey waxaysan aqoonin uu baray iyo nabi aadan oo saas ahaa markii mukhaalafa ay ka dhacday inay keentay in jannadii laga soo baxo oo xoogaa dhibaatadaas u timid ayadii baa weli marka noo socoto qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qulnaa waxaan nidhi ihbiduu dhaadhaca baan nidhi minhaa jannadii ka dhaadhaca hoos uga dega jamiican dhammaan xaal aad tihiin adinka dhan hoos uga degta jannada oo dhulka taga hor baa aayadda hor loo soo sheegay qulna habiduu bacdukum libacdin caduwun baa hor loo soo yiri tan marka waxaa loo soo celiyey waxaan ka dambeeyo ziyaadada inay timaado awal waxaa la soo yiri dega waxaana awlaadaada markii la eego dulmi iyo colaad iyo waxaasaa dhex mari doonta taas macnaheedu ma ahan inaysan dadkii khayr yeelanaynin ee hanuun baa ilaahay keenayaa markaasay dadkii kala qaybsamayaan ihbiduuda dambe macnahaasay wadataa fa imaa buu yidhi marka ilaahay fa imaa yaatiyanna hadduu yimaado kum adinka inii yimaado minnii aniga xaggaygana uu inkaga yimaado hudan hanuun uu inii yimaado kitaab iyo rasuul iyo wax hanuuninaya hadday inii yimaadaan famankii tabica raaca hudaaya aniga hanuunkayga dabagala sidii imaam ma'muumka u raaca xagga iyo xagga aan uga leexan falaa khawfun cabsiyu ay mustaqbal ka cabsanahayaan calayhim kuwaa korkooda ma ahanin walaa hum ayagu mana ahan yaxzanuuna inay tiiraanyoonayaan oo wax dhaafayna ka tiiraanyoon mahayaan khawfku waa cabsataa wax soo socdaad ka cabsataa tiiraanyada iyo murugaduna wax ku soo maray oo ku dhaafaad ka cabsataa marka dhib ku imaanahaya kama cabsanayaan wax dhaafay oo ay leeyihin allah waxaas maxay noo dhaafeenna ku dhici mahayaan oo jannada la geliyaa hadda wax kastoo soo maray uga nacfo والذين بو إلهي كوي كفروا قالوا بنا كوي هنون كي راعي حالكو واساس وهو الذين وحي كفروا قالوا بنا كفر واكي لبا معنى نوصو لها كفران أو نعمة اللي سارو كفر أو دين كلا إنكرو لبا دي ما دام كفروا أي مد أصوبتو فإلهي وحي راعي وكذبوا بينيين وكفر ونعس بآياتنا آياتها يجي بينيين aayadaha ayagii kutubtii bay beeniyeen ulaa'ika kuwaasuna asxaabu naari naarta kuwa u saaxiibbaa weeye ayagee naarta baa saaxiibahaya suxbadu marka marna waxay horta suxbataa in ayaan un la wada socdo laakiin mar baa lagu daa'im noqon karaa weligeed suxbadaas marna mar dhaxaa la kala tegi karaa ilaahay wuu caddeeyo wuxuu yidhi hum ayagu khaaliduuna kuwa waarahaya weeyaan fiihaa naarta ku waarahaya ee suxbadu mid wada socodku soo dhamaanaya ma ahan yaa bani israa'iila markii halkaa marka waxaa noogu soo dhacmaaday nicmooyinkii la tirinahayo cumuumka dadka ka dhexeeyey halkaana marka waxaa la galay khitaab reer bani israa'iil gooni loola hadlahayo markii horeeta waxaa suuradda lagu soo bilaabay in dadkii muuminiinta ahaa lasoo sheegay kuwii gaaladii khaaliska ahaa lasoo sheego caama aan yuhuud iyo nasaara iyo kuwa kale lahayn kadibna munaafiqiintii baa laga soo hadlay markaa kadib waxaa la galay cumuumka dadka khitaabkiisi yaa ayuhannaasu ucbuduu rabbakum baa laga soo bilaabay
markaasaa waxaa lagu bilaabay ilaahay waxdaaniyadiisa adiladeeda in la sugo, waxaa lagu xujiyey nebiga suuban rasuulnimadiisa in la sugo, mucjizadiina baana lagu sugahayo qur-aanka laga hadlay. kadib waxaa laga soo hadlay macaadkii iyo waxay ku dambaynayaan labada firqo ay ku kala dambaynayaan, kadibna cumuumu naas baa markaa kadib nicmooyinkii loo gala ilaahay sheegay. maadaama marka qoladan reer bani Israa'iil ay ahaayeen kitaab hore kuwa leh oo cilmi horeeta la socda, nebiga suuban xilligiisii kuwii joogayna qaabkii munaafiqiinta u dhaqmahayeen oo waxay hoos ka ogaayeen ay afkana ka inkirahayeen baa ayaga si gooniga ilaahay ula khitaaba. nicmooyinkii ilaahay u galay markaa cid rabta inaad soo qabatid oo meel xun aad ka soo qabatid, marka hore waad ku amaal sheegataa, warniyow saas iyo saasaa kuu gala. haddana waxaad igu xujisaa in aad meel uu fiican qofku hadduu ka soo jeedo iyo nicmooyinka uu haystana markaasaa la xusuusiyaa. kadib baa markaas asagoo intaa lala soo maray baa marka lala khitaabaa. khitaabkaasu marka reer bani Israa'iil ilaahay la khitaabaya ilaa muddo dambe oo socon doonta, ilaa laga gaari doono afatadmacuuna yaa bani Israa'iila buu ilaahay yidhi marka Israa'iil oo Yacquub ah, Yacquub wiilashiisiiyow, udkuruu waxaad xusuusataan kuwii nebi Yacquub ka soo jeeday ow, nicmatii aniga nicmadayda xusuusta, ama udkuruu waxaad afka ka sheegtaan nicmatii nicmadayda sheega, labadaba macno waa noqon kartaa. allatii nicmadaasoo ancamtu aan nicmeeyey, bihaa nicmadaas aan ku nicmeeyey oo calaykum korkiinna aan ugu nicmeeyey. nicmooyinka la tirin doono oo suuraddan iyadoo faahfaahsan bay noogu imaanaysaa, hadda waa loo ijmaaliyey, ayaga looma gelina waa aabbayaalkoodii waxaa nicmada loo sameeyey. qofka marka aabbayaalkiisa nicmada loo galaa waa mid asaga loo galay. wa awfuu buu ilaahay yidhi waxaad oofisaan bicahdii ballankaygii oofiya aan inkula ballamay, oo nebi maxamed in la rumeeyo ah, awaamirtii in la fuliya. uufi aniguna waxaan ka soo baxahayaayoon oofinayaa bicahdikum ballankiinnii aan ila galay ana oofinayaayoo ah inaan inku thawaab siiyo janno ini geliyo. wa iyaaya aniga uuna farhabuuna iga cabsadu ilaahay yidhi, cid kale ha ka cabsanina. amarka qofku ilaahay wuxuu fulin karaa markuusan waxyaabaha ku xeeran oo asaga saamaynahaya uusan u jilcina ilaahay keliya ka doorto. haddii laakiin waxyaabaha kale uu fiiriyo hadde ma dhacdo xaqii asagoo arkayuu qofku ka caradhahaya. taasuu ilaahay marka ku baraarujiyo oo yidhi wa iyaaya aniga uun farhabuuni iga baqa, cid kale ha ka cabsanina. saasaad amarkii ku fulin karaa. wa aaminuu markii ilaahay nicmada u xusuusiyo yidhi nicmadaa xusuusta, qalbigiinna ka xusuusta ku shukriya, afka ka sheego oo dadka ku wacyigeliyo bara. ballankayga inaad oofisaan markaa sameeya, ballankii la rabay inay oofiyaan baa qaar loo faahfaahishay. wa aaminuu buu ilaahay yidhi waxaad rumaysaan bimaa alladii shaygii rumeeya anzaltu aan dejiyey, anzaltuhu wixii la dejiyay hadda waa qur-aankii, musadiqan xaal uu yahay midkaas aan soo dejiyey mid u rumaynahaya, limaa kii u rumaynaya macakum adinka miciinna ahaayoo towraad ahaabuu u rumaynayaa. wuxuu ugu rumaynayaa wuu waafaqsan yahay, sida alla keliya hala caabuduu leeyahay. qiyaamadii iyo aakhiradiiba isku si uga hadlahayaan, saasuu buu ugu rumaynayaa. marka rumeeya qur-aankii aan soo dejiyey, asagoo weliba waxaad haysateen buuna rumaynayaayoo towraad ahaa. qofku haddii la yidhaahdo ka tag wuxuu ku jiray, wax ka fog oon iswaafaqsanen u tag waa ku cuusta, war kamaba fogaba waxaad haysateen. walaa takuunuu buu ilaahay yidhi ha ahaanina awwala kaafirin qola gaalowda mid gaalooba kan ugu horeeya ha ahaanina bihi midkaas aan soo dejiyo qur'aanka, kuwa ku gaalooba qaybta ugu horeysa adinku ha noqonina oo ahlu kitaabka. hortooda mushrikiintaaba gaala ku ahay, intaan nabigu madiinayin bay yuhuudda is arkeen, ka hor baaba quraysho ku gaalowda. marka cid ahlu kitaab ah oo cilmi hore lahayd oo ku gaalowda adinku ha u horeynina. waa ceeb qofku wuxuu yaqaano asagoo cilmigee leh inuu haddana dhibkii u hormara ceeb bay inku tahay. waxayna ka dambeeyana dembigoodii baad qaadaysaan. walaa tashtaruu buu ilaahay yidhi ha ku iibsaninoo ha ku bedelanina biaayaatii
aayadahaygii kitaabkiina ku sugnaa oo nebiga suuban tilmaamahayay intaad qarisaan oo aad doorisaan thamanan lacag ha ku bedelanina ciwadkaasoo qaliilan yar ha ku bedelanina wax yar ha dhaafsanina wax kastood aayadahaygii intaad qarisaan nacfihood heshaan iskeeda waaba wax yarba hadday aan kee badan yihiin waa wax yar xoo ma galaan markii loo fiiriyo dhibaatada ka imaanaysa ha ku bedelanina wa iyaaya aniga uuna fattaquuni iga cabsada oo inaad bedelkaa samaysaan aniga un iga baqa waa inuu ku ciqaabahayaayo tanu mid laynu ku dhaafahaya ma ahan oo dembiga caadiga la mid maaha xaqii markii lagala dardaaramo oo yidhi ha la qarinina xaqa laba siyood baa qofku markuu qof dhuminayo u qariya laba siyood buu qofku markuu dad dhuminayo u dhumiya midu waxa weeyaan marka hore waxa horta ilaahay yidhi adinku hanuunsanaadoo iimaan yeesha oo muxuu halkaa uga digay inaa iyagu dhumaan markaana walaa talbisuu wuxuu ilaahay uga digayaa inay dadka dhumiyaan qof markuu marka dad dhuminayo laba siyaabood buu u dhumiyaa dadka uu dhuminayo xaqa maqal bay ka haystaan waa maqleen marka muxuu ku dhumiyaa inuu ka tashwiish geliyo ishkaal ka geliyo waxasaan lagama wado aad u maqasheen iyo saasaa laga wadaa iyo caynkaas maahan iyo talbiis buu geliyo ama qofku waxa maba aragba uu rabaa inuu dhumiyo markaasna wuu ka qariyaa waxaanu maba jiraanba maba dhicin labadiibu marka ilaahay ka nahyinaya walaa talbisuu ha ku darinina buu ilaahay yidhi alxaqa xaqii ha ku dhex darinina aad taqaaneen oo laynu ku soo dejiyey oo nebiga sifaadkiisa tilmaamahayay bilbaatili wax baatila ha ku darinin oo adinku aad samaynaysaan oo jeebkiina kala soo baxaysaan oo dadkii saas ilbaas labsi ha uga samaynina waxa isaga dhex darinina markii leeyahay soo nebiga lama sheegin sifaadkiisa markii caamadiinu inuu weydiiso waa tii warkaa la sheegi jiray maya saasaa laga wada ninkaanu tilmaantay male caynka weeye ilbaaska ha samaynina wataktumuu walaa taktumuu hana qarinina alxaqa xaqiina ha qarinina qoladan warka hayna isaga dhanba ha ka qarinina walxaal antum buu ilaahay yidhi adinku taclamuuna aad ogtihiin annahu xaqun inuu xaq yahayna adinkoo la socda waxa qofku markuu og yahay inuu qariyo bay ka sii daran tahay markuusan ogeyn qarinteeda waaqiimuu buu yidhi ilaahay asalaata salaadii toosiya oo hagaajiya oo siday ahayd na u sameeya daa'imana saan horeyba u soo marnay wa aatuu waxaadna bixisaan siisaan azakaata zakadiina siiya ciddii mudatay siiya warkacuu tukadana maca raakiciina kuwa tukanahaya macooda tukada oo midda hore waxay noqonaysaa salaadii iskeeda u sameeya zakadiina bixiya haddana salaadii keligaabaa tukanka dhaaye maca raakiciina kuwa tukanahaya la tukadoo jamaacadii wax ka ooga irkacuudii marka waxaa laga wadaa rukuuca keliya maahane waa tukada maca raakiciina kuwa rukuucsan keliya maahane waa kuwa tukanaya la tukada marka maxaa la cabiray juz salaadii ka mida qayb ka mid aha la cabiray irkacuu maxaana loo jeedaa salaadii oo dhan sababta maxaa keenay ilaa xikmad baa ku jidhe yuhuuddan salaadoodu rukuucu lahaan jirin ataamuruuna buu ilaahay marka ma waxaad amraysaan halkaana wuxuu ilaahay uu ka digahayaa ataamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum ayaga qubxigooda iyo foolxumadooda markay qarinayaan nebiga suuban sifaadkiisa xaqii qarinayaan towraadna ha la rumeeyo ay leeyihiin arrintaa foolxumadeeda ilaahay ku baraarujinaya markaasuu ilaahay wuxuu yidhi ataamuruuna war inkaar qabooyin ma waxaad amraysaan adinka culummadaahu annaasa dadkii ma waxaad amraysaan bilbiri daacadii miyaad amraysaan oo daacadaasu maxay tahay waxaad leedihiin waa tafsiirka ugu fiican waxaad leedihiin towraad ha la raaco baad leedihiin dadkii caamadiina saasaad ku celinaysaan watansawna ma waxaadna iloobaysaan oo ka tegaysaan anfusakum naftiinii adinkiina raaci maysaan oo nebigii way towreed in tiri rumeeya waa diidantihiin adinku walxaal antum adinku tatluuna aad weliba akhrinaysaan alkitaaba kitaabkii towraad adinkoo akhrinahaya miyaa saa ku dhaqmaysa qof aan kee warhayn lamaba yaabeene afalaa tacqiluun war ma weynan wax garanayn buu ilaahay yidhi waxaasoo kaleeto qof caqli kama soo fulaan qofku ilaa markuu naftiisa naf kale uu badbaadinahayo
tiisuu ka jecel yahay tiisa inuu hor badbaadiyo soo ma ahayn wax caqligu keenahay maya wastaciinuu bisabri wasalaati waxaa marka nimankan lasoo amray waxyaaba adag oo nafta ku adag waxyaabahaas adagu maxay yihiin carray wadaadda ka ahaayeen waa ka ilaahay yidhi aayadahayga xoolaha siisaninoo dadka hadda xoola ka qaadan jireenoo wadaadda u ahay haddii ay dadkii marka iska fasaxaan oo nebiga suuban ay iimaankiisa doortaanna wax adag baa meeshii nafta ku jidhoo ah in ay xoolahaas waayaan wixii ma'luufka ahaayoo yaqaaneen inay ka baxaan oo markay matbuuciin ahaayeen kadib dad la raaco ay taabiciin noqdaan waa arrimo nafta ku adag arrimaha nafta ku adaguna u bereerid bay rabtaa sahal arrin lagu aadi karo ma aha markaasuu ilaahay ku hanuuniyey oo yidhi amarkaygii markasta waa qaadasho naftana waa ku adag yahay waxaad marka yeeshaan wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabar kaalmaysta inaad sabartaanoo nafta aad ku xabistaan waxaas ku adag kaalmaysta oo wasalaati salaadana kaalmaysta khushuuc baad ayadana ka helaysaanoo adduunyadii aad ka daba ordayseen baad ku nacaysaan kibirkii idinku jiray ood iska weynaynayseen baa idinka zuulahaya labadaas ilaahay kaalmaysto wa innahaa buu yidhi ilaahay salaaduna lakabiiratun waa mid adag oo culus ilaa cala alkhaashiciina kuwa ismiskiininahaya oo khushuucahaya maahane kuwa kaleeto waa ku culustahay aladiina kuwaas weliba khaashiciinta ahoo yadunnuuna hubaan ama malaynayaan annahum bay malaynayaan ayagu mulaaquu rabbihim rabbigooda kuwa la kulmahaya inay yihiin wa annahum ayaguna raajicuuna kuwa noqonaya inay yihiin bay hubaan ilayhi ilaahay u noqonahayaan salaaduna wuxuu ilaahay si gooniya ugu sheegay way ku culus tahay qofaan khushuucsanayn oo khushuuciina muxuu yahay waxay hubaan ilaahay inay la kulmayaan oo dhimanayaan waxay hubaan inay ilaahay u noqonayaan oo acmaashooda laguma xisaabtamayo qofkii noocaas u fekera qalbigiisa jabbaa ku imaanaya wuu fekeraya kuwaas weeye kuwa salaada u fududaanaysa kuwa kaleeto uma fududa yaa bani israa'iil maxaa igu xiga yaa bani israa'iila buu ilaahay yidhi mar kalena khitaabkii reer bani israa'iil la hadlaha ilaahay soo celiyey nicmadii la xusuusinahayo si guud loo xusuusinahayo tii horoo la sheegay waxaan ahayn laga ratibhayo markaasuu ilaahay yidhi yaa bani israa'iila yacquub awlaadiisiiyow udkuruu xusuusta ama sheega nicmatii allatii nicmadii ancamtu calaykum korkiina aan ku nicmeeyey wa annii anugu fadaltukum adinka inaan dheeraad ini siiyeyna xusuusta calalcaalamiina makhluuqaadkii inku waktiga ahaa aan dheeraad idinka siiyey ambiyo aan idinka soo saaray intaasoo nicmaahoo la tirin doono wataquu buu ilaahay yidhi waxaad ka baqdaan marka yowman maalin ka baqa maalinkaasoo laa tajzii aysan gudayn maalinkaa dhexdiisa nafsu nafu can nafsi naf kale xaggeeda shay-an haba yaraatee wax yarna aysan ka gudi karin oo ka bixin karin walaa tuqbalu aana la aqbalaynin maalinkaa dhexdiisa minhaa naf xaggeeda shafaacatun ergo ay naf kaleto u ergoota aan laga aqbalaynin walaa yuukhadu aana la qaadaynin minhaa naftaas xaggeedana cadlun furashana aan laga qaadaynin walaa hum nufuustaasuna yunsaruuna kuwa loo hiilinahayo acwaan iyo dad u kaalmeeye helahayana aan ahayn qofka markii xaq lagu leeyahay xaqaaseebuu uga fakadaa afar shay buu mid uga fakadaa mid waxa weeyaan xaqii in laga gudo waaba la bixiyey hadda warkii waa dhammaaday mid waxa weeye xaqii lama gudin laakiin intii laga ergeeyey baa la yidhi bal hadda la iska daayo maanta saasna qofkii waa ku fakada haddii lagana bixin waayo lagana ergeyn waayo asagay ku soo aruurtay inuu isfurto bay tegeysaa midda saddexaad arrin saddexaad waa imaanka dhaa saddexaad afaraad haddii intaa midna aan la awoodin ergana la diiday wax ka bixiyana la waayey asagiina isfuran waayey gacan intii la isugu tago hadda aan garab istaagno aan la baxno intuba waa maalintaas wuxuu yidhi ilaahay afarta asbaaboo la isku furto midna sugtooyi mayso waa cabsiin marka aad u xeel dheer
yaa banii isri qulnaa waxaan ilaahay niri buu yidhi ihbiduu minhaa min aljanna jamiican marka ihbiduudii waa tii hore loo soo maray middaan iyo tii hore waxaa ku jira tafaasiir kala duwan qolo waxay tidhi waa ta'kiid tii hore la adkaynaya qolona waxay tidhi maya macno cusub baa ku jira oo kararahu liyucdafa calayhi fa imaa yaatiyannakum macnaha hore allahay wadataa loo socodiyey oo waa lita'kiidi wa tawdi'atun limaa bacdahu weeye qolona waxay leeyihiin maye waxa weeyaan qolaa marka waxay tiri ra'yigaasuna ra'yi aadam ma ahan waxay leeyihiin hubuudkaa laba qaybood ah markii hore la lahaa qulna habiduu bacdukum lalahaa waa waxaad ka soo dhaadhacdaan jannada samada imaada markii la yidhi qulna habiduu minhaa jamiicanna ayana meeshii dhexoo la keeno samada ahaa ka soo dhaadhaca dhulka u dhaadhaca waxaa loo nisbeeyaa sheikh muctaziliyahoo abu caliyin aljubaa'iyu la yidhaahdo waana arrin daciifa waxaa daciifinaysa markii hore u fiirso ilaahay yidhi qulna habiduu bacdukum libacdin caduwun walakum fi lardi mustaqarun dhulkaadba tegaysaan markii hore la soo yiri markii hore haddii marka hubuudkii hore samada uu ahaan lahaa midka dambay ahayd in walakum fi lardi mustaqarun ka dambe in lagu sheego baa kasoo bixi lahaa taas marka waa ra'yi daciif midda kaleeta waxaa la yidhi culummada qaarkood ay yidhaahdeen oo uu masalan fakhrudiin raazi uu leeyahay xoogaa waa runya tafsiirkaas oo si yacni takraar uusan meesha u imaan marka horeo la yidhi ihbiduu bacdukum libacdin caduwun walakum fi lardi mustaqarun markii la yidhi maxaa ka dambeeye toobadkeen baa ka dambeeyey fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba hadday toobad keeneen waxaa dhici kadha ilaahay baa yaqiinta oge inay u qaateen arrintii inay dhammaatay oo wixii la lahaa dhaadhaca lagu amrahayey dembi la galay inay ahayd dembigii laga toobad keenay la joogayo marka qulna habiduu maye waa degashadu waa lagama maarmaan saasna waa dhici kadha fa imaadii waxaa fiihi waxaa ku sugan idqaamu in shardiyati nuuntii intii shardiyada ahayd nuuntii ku jidhay la shido fii maa lagu shido fii miimi maada miimteeda lagu shido azaa'idati ee zaa'ida in iyo maadii baa laisku shido yaatiyannakum minii hudan aniga uu idinkaga yimaado ilaahay yidhi hawal maxaa lasoo yiri fiiri qulnaa nuuntii cadamada baa la isticmaalay ilaahay waa un asaga keliya waxa wax dhahaya laakiin nuun weyna tusinaysaa markii dambana fa imaa yaatiyannakum minnaa lama dhihin oo noocii laguma wadin minii hudan baa la yidhi oo si khaasa baa loo caabiray taasuna waxay tusinaysaa bay yidhaahdeen hanuunku ilaahay keliya inuu ka yimaado oo u khaas yahay kitaabun wa rasuulun hanuunkaas imaanahaya kitaab iyo rasuul saasuu asaga ku fasira waana tafaasiirta qaar ka mid a unbaas lahayn faman tabica hudaaya marka haddii hanuunku yimaado dadkii labadan qaybood bay noqonayaan faman tabica hudaaya qofkii hanuunkaygaas raaca hanuunka ilaahay in loo idaafeeyey weyneyn bay tusinaysaa ee alhudaa layskama dhihin oo fa aamana bi rumeeyo wa camila bidaacatii ku camal fala falaa khawfun calayhim cabsiyo korkooda ma ahaanin mustaqbal wax ku imaanaya oo dhiba laga boqo walaa hum ayaguna yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonaya ma ahan oo waxaasana dhaafay haddaysan waagina dhaafi lahayn ay ku fikirayaanna ma jiraan fil aakhirati waxaa marka la dhihi karaa adduunka dadka muuminiinta cabsi baa ku timaado oo ilaahay hanuunkiisa raaca ay cabsadaan oo wax ku soo socda ay ka cabsadaan waxaa ku yimaada tiiraanyo wax soo dhaafa ay ka tiiraanyoodaan waatana ilaahay wuu anfiyey taas asagoo ka jawaabayo wuxuu yidhi mufasirku waa fil aakhirati aakhira weeyaan waxa laga hadla baysan ku ahayn adduunkii waa ku imaanayaan muuminiintii dhibkaas bian yudkhaluu aljannata jannada in la geliyo baysan ku tiiraanyoonaynin cabsina aysan ku arkaynin sida ilaahay u yidhi laa yaxzunuhum alfazacu alakbar su'aal kalaa marka imaanka dhah waxaa la yidhi qiyaamada markii la tago oo qoraxda la soo dhoweeyo sida axaadiista ku caddayd ummadda dhan waa cabsanaysaa kulligii cabsida waa imaanaysaa ilaa ummadda dhan ay ambiyadu u tagaan oo ergow aadaan qof kastaaba asagoo cabsi ku jira ilaa malaa ambiyadu maalinkaas ay mid kastaaba hadalkoodu yahay ilaahu aniga inabadgeli hadalkooda kusoo aruuraya waana tanoo aakhira wax cabsiyuhu ma jiraan baa la yidhi taasna waxaa muujinaysaa layidhi jawaabteedu waa laba siyood mid waxa weeye falaa khawfun calayhim calaaba ilaahay cabira falaa yakhaafuun ma baqahayaan muxuu yidhi falaa khawfun calayhim calaadiina maxay tusinaysaa
saan horba u soo marnay calaa hudan makansi waxa la makansado cabsi ayaga korkooda makansata oo daboosha oo rajo tirta baan jirin waa midda la diidaya qof kastoo marka muslim oo qiyaamadii taaganu ha boqo laakiin quus uu rajo ka quustuu leeyahay leela waa kuu dhammaatay ma jidhe rajo waa qaba falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ama maahane waxaa la yidhi waxaa laga wadaa markay jannada galaan wixii cabsi ahaayo mowqifka ku soo maray iyagoon waxba jirin bay la mid noqonahayaan bal waxayba u kordhinahayaan muxuu ahaayey nicmo saa markuu qofku dhib soo arko nicmana uga dambayso si fiican buu nicmadan xusuustaa والذين كفروا meesheedii lama dhihin baa liyi waman lam yatbac hudaaya qofkaan hanuunkayga raacin ilaa muqaabaladu isku cabirida labadooda la isku cabira qaabkaasi u ekaan lahayd waa in la caddeeyo hanuun raacitaankii ilaa qaybuul hanuun raacitaan la'aanta qayba leh qaybta qatarta ahoo naarta in lagu waarkeenaysa waa qaybta والذين كفروا kuwii kufriyeenoo wakadabuu biaayaatinaa ay kutubina beeniyeen kufrigii maadaama uu laba noqon kari baa markaas la sii cadiyay ulaa'ika asxaabu nnaari kuwa naarta u saaxiibkaana weeyaan hum ayaguna suxbadu waa un muddo wada socoshee hum fiihaa khaaliduun weliba waa ku waaraya maakisuuna abadan laa yafnuun walaa yukhrajuun mana baaba'ahayaan mana laga bixinayo yaa banii israa'iila ibnigu oo israa'iilka horta waa awlaadu yacquub buu yidhi israa'iil waxaa la yidhaha nebi yacquub baa la dhahaa waxaa la yidhi israadu waxa weeyaan waa cabdi iilna luqada cibriga ahay waxay ku tahay allah markaasuu macnihi muxuu noqonayaa cabdullah markaasaa waxaa kuu soo baxaysa macnahaas asalkaa markaad fahantid ama waxaa la yidhi israadu waa safwa waa kii la xushay oo lasoo doortay markaasuu noqonayaa safwatallah midkii ilaahay xushay ilaa nebi buu ahaaye marka macnaha la fahmo baa waxaa kuu soo baxaysa yacquub baa ilaa loo jeedaay maxaa magacii yacquub ahaa looga leexday oo xikmadahu aayaddu ku ilaalisay waa ayaga in nicmadaa la xusuusiyo oo qofka markaa tidhahda war ninkii caalimka ahaa wiilkiisiiyow iyo hebel wiilkiisiiyo way kala duwan yihiin yaa banii israa'iila yacquub awlaadii siiyey saasaa marka keentay buu leeyahay halkaa marka wuxuu yidhi qaala ibnu jazi alkalabi fii tafsiirihi lamaa qadama markuu ilaahay dacwata annaasi cumuuman dadka si guud in loogu yeero soo hormariyey wadakara mabda'ahum bilowgii hoodori meesha laga abuuray sheegay uu dacaa banii israa'iila khusuusan si gooni uu reer banii israa'iil ugu yeeray wahumul yahuudu weeyaan wajara alkalaamu macahum min hunaa ilaa xisbi sayaquuluuna ilaa xisbigeeda laga gaarahay ilaa halkaa laga gaarahayo reer banii israa'iil baa hadalku socda sayaquulu sufahaa ilaa laga gaarahay fataaratan dacaahum bilmulaadafa si dabcinaha ilaahay mar ugu yeerayaa wadikri muxuu ahaay nicmooyinkii loo galay in la sheegay aabbayaalkood taaratanna bitakhwiifi cabsiin la cabsiiyo marna biiqaamati alxujati in lagu ogo wa tawbiiqihim lagula dagaalamo lagu canaanto calaa suui acmaalihim acmaashooda iyo cuquubooyinkooda in la sheego oo ilaahay ku ciqaabay markaasuu ilaahay nicmooyinku u galay wuxuu ka sheegay 10 shay wahiyo waxa weeyaan id najaynaakum min aali fircawna kow id faraqnaa bikum albaxra markaan badda inii dilaacinay 2 وبعثناكم من بعد موتكم أدنكم ودنتي وأنقار كمدا متكستي عن سوس أرني ظللنا عليكم الغمام ضرورة عيني هريني أنزلنا عليكم المن إيو وصلوا لبك كالتري وعفونا عنكم أن عفيني ونغفر لكم خطاياكم تاس وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يوم فجرت منه 12 تداس ويعينا لبيت وانك إلوضة أصاب القطي وحا إلهي أفعاشو دي حميت كشيغي 10 أشياء 10 شيئين وحماي كعهيين مدوا سمعنا وان مقلنا وعصينا وان أمر ديننا واتخذتم العجلة يو قول كودي أي هدين أرنا الله جهرة ستوس على النوتس يوبدل الذين ظلموا وامد ولن نصبر على طعام واحد هل طعام ما أقبلينه ويحرفون الكلمة وامد وتوليتم من بعد ذلك وقست قلوبكم يكفر جود بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقرآن كجود بشيء بغير حق وحا إلهي شيء عقوباتك اللي سمينا 10 نوع با إلهي كشيغي ضربت عليهم الذلة والمسكنة باءوا بغضب من الله بين النقدين يعضوا الجزية إلى إديبان واقتلوا أنفسكم دلا يجي إسدل الليري كونوا قردة النقد الليري دان يروح أنزلنا عليهم رجزا من السماء عقابا عرك وسودتنا إلهي وأخذتهم الصاعقة برقبة كل عضي وجعلنا قلوبهم قاسية وحرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وحياة بقوني واستخاص الله حرمي وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين وحاصرا وآبيالك ذي هروح ودعين
ayaga waxaa marka lagula khidaabay kuwa nebiga suuban la jooga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi liannahum mutabicuuna lahum ilaa ayagay raacsanaayeen raaduuna biaxmaalihim axwaalihimna waa ku raadi ahaayeen waxaa ilaahay ku canaantay kuwii nebiga suuban la joogayna waxyaabo kale oo 10 ah inay nebiga suuban amarkiisa qarinayeen ayagoo yaqaana yuxarifuuna alkalima inay rogahayeen yaquuluuna haadaa min cindi illaah kanuu ilaahay agtiisa kama ahaanin bay leeyihiin saasa ilata wataqtuluuna anfusakum watukhrijuuna fariiqan minkum min diyaarikum taas diyaarihim xirsigooda calal xayaati nolosha ay jeclaayeen waladejidannahum axrasanaasidii cadaawadooda jibriil ay la col ahaayeen sixirkii inay raaceen inay yidhaahdeen ilaahay ilmihiisaan nahay wiilashiisa inay yidhaahdeen yadullaahi maqluula ilaahay gacantiisu waxa iyagu say u yaqaaneen waa maqluula mid xabisan weeyaan waxyaabahaasaa marka halkan laga galay buu yidhi halkaa marka ibnintu wuxuu leeyahay ma binaa'in baa laga keensaday mise bunuwatin baa laga keensaday oo waa wow mise waa binaa'in oo waa yaa'i waxaas waxbar ka hadlaya wuxuu marka ilaahay yidhi nicmadayda xusuusta allatii ancamtu calaykum ay calaa aabaa'ikum min alinjaa'i badbaadin ah min fircawna laga badbaadiyey wa falqi lbaxri baddii la dilaaciya nicmadaasu ah oo la dhex maray wa tadliili lqamaami daruurtii iyo caadkii hoosintuu in hoosinahayay ah wagayri daalika iyo intaas waxaan hayn ah dikriga marka wuxuu noqon karaa carabka iyo qalbiga labadaba dikri dheh ama dikri dhadaalka god kisaayi wuxuu dhahaa buu yidhi asagu laga soo guuriyey haddii daalka la godo waa xusuusta midka qalbiga waxa laga sheego qalbiga laga sheegay waa lagu soo rido waa la xusuusta haddii daalka la hoos dhigana waa midka carabkaabuu asagu yidhi laakiin mid ay uun tahayba labadooda waa meesha waa qaban karaa haddii la yidhaahdo marka sheega nicmadaydii afka ka sheega shayga markii la sheego oo bulshada lagu dhex sheego oo dadka lagu wacyigeliyo iyo markaysan ka warhayn waa kala duwan yahay dadku ha arkeen nicmadii loo galay ku sheega ama xusuusnaada oo ku shukriya marka waxaa su-aashu imaan kadhaa reer bani israa'iil nicmooyinkan waana ka sheekayn jirin hadda waaba ku faani jirin in loo galay waana xusuusnaayeen oo cilmi ahaan waa lahaayeen marka amarka la amrahayaa caynkee yahay markii la weydiiyo jawaabteedii waa midda mufasirku ishaaro uu yidhi bian tashkuruuhaa waxaad ku xusuusnaataan inaad ku shukrisaan nicmooyinkaas bidaacatii adeecid anigaad adeecdaanna aa kula shukrisaan nicmada xusuustadeedii waxaa muraadka laga leeyahay inaad ku shukrisaan weeyaan shukrigeedii muxuu noqonahayaa waa sidaan hadda wa awfuu buu ilaahay waxaad ka soo baxdaan bicahdii ballankayii ka soo baxa alladii ahidtu ilaykum aan idinkula ballamay oo min aliimaani bimuxamedin nabiga la rumeeya ah uufi bicahdikum anna ballankiinnii baan anna ka soo baxahayaa aad igula ballanteen ilaahay miyaa marka ballan lala galaa ballanku waa shuruud ilaa la kala xirto marka waa muqaabala la dhihi karaa lafdigoodii baa kana la waafajinaya ujeedku muxuu yahay waa uufi anigu waxaan oofinayaa bicahdikum biwacdi yaboohii aan ini yabaho ini waxaasaan siinaya aan ballan qaaday lisaanu rususha aan ku ballan qaaday ama waxay si loo adkeeyo dadka aad loogu gubaabiyo sidii man dha alladii yuqridu allaha qardan xasana waryaa ilaahay wax amaahinayo sadaqadii baa laga cabira baa ballan laga cabira la kala dhigtay oo kaleeto ballankan in kula ballamana ilaahay muxuu yidhi alladii cahidtuhu ilaykum in kula ballamo oo min athawaabi calayhi iimaankaas inaan inka thawaab siiyo ah bidukhuuli ljannati inaan inkaga thawaab siiyo marka shaygaas lagula ballamay muxuu yahay ayaga midka asaga ayagase loo ballan qaaday muxuu yahay kase ayagu ay ballan qaadeen oo laga rabay muxuu yahay waa kaasaa sheekha ku fasiray tafaasiir fara badan baana ku jidha oo la yidhi ay ka tiriyeen sida abu xayaanka iyo 24 qowl baa ku jira wixii laakiin waxay isugu tagahayaanoo midka ugu rajaxan uu yahay awaamirtii layna amray ilaaliya ballankayguna muxuu yahay waa waxaa inay ballan qaado thawaabkii ah waxaana kaloo waxaa la yidhi la dhihi karaana waa tafaasiirta waxaa ka mid a aadna muhim u ah waa midii ilaahay uu yidhi walaqad cahidnaa ilaa bani israa'iila wabacathnaa minhum 12 naqiiban aayaddaas midda ilahay ku faahfaahay suuratu lmaa'ida nicmadana waxaa la dhahaa ismun limaa yuncamu bihi wixii qofka loogu nicmeeyo magacyada weeyaan oo maxay tahay waxa qofka loogu nicmeeyaana waa shay qof loo sameeyo calaa wajhi lixsaani baana loogu sameeyey shay manfacaahu qofka wax taraya ixsaanna loogu sameeyo cidda qof yaanan ku qaydin cidda laakiin haddaan waxa isxaan ahaan loogu samaynayni مثلا waxay yiraahdaan neef baad cayilinaysaa oo cunaa ku dadalaysa ujeedkana kamalida aqalati ma ixsaan baa taas ma aha
uufi bicahdikum marka saa daraaddeed wax kastoo nicmaahu ilaahay bay xaggiisa ka yimaadaan waxbuu ilaahay kuu samaynayaa ixsaan buu kugu samaynaya wax uu kaaga rabo oo jiraan jiraan wa iyaaya aniga uuna farhabuuni khaafuuni aniga iga baqa keliya fii tarkil wafaayi iga baqa oofintii bihi ballankaas aad oofisaan ka tegidda laga tago duuna kayrii aniga cidaan ahayn ha ka biqinina duuna kayri wuxuu ku ishaarahayaa yacni takhsiis baa meesha ku jira aniga uun iga baqa iyaayadaasu farhabuunidii kuma camalfalaysa saafa baa u dhaxaysa faadana waxaa ka dambeeya waxaa ka horeeya baataan ku camalfali jirin marka iyaayadii irhabuu baa meesha ku jira gadaashii lasoo qadarayo horteeda haddaan soo qadarno hadday inuu damiirkii mutasil noqdo baa ka imaan lahayd sharaxaadda dheer buu ka bixinaya wa iyaaya aniga uun irhabuu ka baqa farhabuunii iga baqa qiraaba saas ahayd oo tan kalena mafcuulkeedii waa yaa mutakalimku ah wa aaminuu waxaa rumaysaan bimaa anzaltu min alqur'aani kuwa la leeyahay rumeeya horta waa reer bani israa'iilka yuhuuddii nebiga xilligooda joogtay sida raajixa ah bimaa anzaltu wixii aan soo dejiyeydaasuna waa qur'aankii haddii nebiga la dhihi lahaa hadda nebigu waa munazalu calayhi waa kii lagu soo dejiyey ee kala soo dejiyey waa qur'aanka marka ilaahay yidhi uu rumeeya uu ku gubaabiyey sababay u rumeeyaan waxay tahay midda hore musadiqan limaa macakum bi qur'aankaasoo wixii adinku aad haysateen buu u rumaynayaa oo towraad ah uu rumaysan yahay waa isagii baa u marqaati furahay inuu xaq yahay marka taasaa inay caddaynaysa muxuu marka ugu rumaynayaa laba siyaabood baa lagu fasiray bimuwaafaqatihi lahaa weeye meeshaas inuu towraad waafaqay oo fi tawxiidda uu ku waafaqay iyo wanubuwati nebinimadii uu ku waafaqsan yahay wuxuuna isku khilaafan axkaam farciyahoo dadka isbedelkooda iyo maalinba wixii u maslaxaa ku saabsan keliya waxay kula duwan ama waxaa la yidhi waxa uu muxuu ahaaye ka waafaqsan yahay towraaddii wuxuu ugu rumaynahayaa awal baa kitaabkii towraad ay hor u soo sheegtay oo nebiga suuban sifaadkiisu bay sheegtay iyo qur'aankan sifaadkiisay sheegtay sidii buuna ku yimid si waafaqsan u rumayntu labadiiba marka way noqon walaa takuunuu awwala kaafirin bihi marka hore su-aasha imaanaysaa waxa weeye takuunuu wowdu waawuljamaaca weeyaan awwala ismu tafdiil weeyaan ismu tafdiilka awalba waa la iska ifraadin jiray markii uusan isagii macrifo usan ahayn laakiin shayga loo idaafeeyaa maxaa la rabay hadduu mudaaf yahay midka mudaaf ilayhiga ahaa waxaa la rabay inuu mawsuufka waafaqo marka kaafirintii waa mufrad ismu tafdiilkiina maxaa la rabay maadaama waxa uu ka horeeyaa oo khabarka uu u yahay waawuljamaaco ay jamaca yihiin inuu jamac ahaado baa la rabay markaas waxay leeyihiin waa kala duwan yahay hadduu ismu tafdiilkii waxa uu idaafaysanuu nakiro yahay sifana uusan ahayn mushtaq yani uusan ahayn waa marka in la waafajiyo ay waajib ka tahay oo aad leedahay azayduuna afdalu rijaalin waa inaad waafajiso jamacaas jamacii ka horeeyey afdaludu khabarka u ahay laakiin hadduu sifo yahay mushtaq yahay waa la ifraadin karaa sida meeshaan oo kaleeto markaasaa waxaa loo soo awilahayaa shay mufrad ah oo muxuu noqonayaa walaa takuunuu ha ahaanina awwala fariiqin koox midka ugu horeysa fariiqaasoo kaafirin bihi midka aan soo dejinay ku gaalo su-aasha markaa ka gudubtay mid kalaa imaanaysa oo maxay tahay see mid kuwa gaaloobay ayagii ugu horeyn karaan nebiga soo kumay gaaloobin kuwa gaaloobay ma u horeyn karaan hortiis baa qurayshu kusoo gaalooda nebiga sooban salawaatullaahi wasalaamu caleyh taasna intuu ka jawaabuu yidhi min ahlilkitaabi oo kitaabka ehelkiisana ah dad ahlu kitaab ah kuwii hore mushrikiin bay ahaayeen oo ku gaalooba ha u horeynina su-aal kalaa marka imaanaysa waayahay markii macnihii saas la yidhaahdo awala maxaa loo cabiray soo awaladu ka dhalan mayso in aakhiru ka dugnaato haddii la yidhi kuwa gaalooba ha u horeynina laakiin haddaa u dambaysaan dhib ma leh oo mar laydinkaga horeeya gaalowdaan ama haddaa u dhaxaysaan dhib ma leh soo macno saasu meesha ka soo bixi maayo mafhuumkaasu marka waxaa la leeyahay mafhuumka yani mukhaalafadu muraad maahan taas inaan loo jeedin waa shay iska cad gaalnimo mar layska dalbahayo iyo mar laysu ogolyahay ilaa marna ma jidho mar haddaad tiri marka mafhuumkii looma jeedo oo natiija ka soo bixi mayso qaydka faa'iido kale waa inuu marka yeesho faa'iidada qaydkaasu marka yeelanahayaa maxay tahay iyadoo ku ishaaray lianna man baa meesha ku jira lianna man maxaa yeelay kuwii khalfakum adinka gadaalkiina ahaa baa tabacun lakum adinka taabicini noqonaya fa ismuhum dembigoodu calaykum korkiinuu yahay awalada macnaheed intaas baa
waray dembi kale dhabarka ha saaranina ilaa waxa in ka dambeeya waa in ku raacayaane dembi kale dhabarka oo kiina ahayn ha saaranina waa muraadku saas ama ma ahane waxa kale looga jawaabi karaa waa foolxumo qofkii asagoo waxa og inuu ciddii ku beenin lahayd u soo hormaro waa ku foolxunta waxaa bal rabay cid rumaysa inuu hormaro ma aragto qof dhahahayo kaleeto hebel oo malayn mayn dadka idhibahaya inaad iigu soo hormaraysid adiga ku malayn ujeedkiisu maahan mar dambe inaa idhibta waa filahay laakiin yacni adooba og iyo nicmada aan kuu galay ama xogta haya adaa u soo hormaraya yacni waa kugu foolxumo muraadku waas walaa tashtaruu tastabdiluu biaayaatii allatii aayadihii fii kitaabikum ku sugnaayo min nacti muxammadin nebiga suuban tilmaantiisa thamanan qaliilan ciwadan yasiiran min addunya adduunyada wax yaroo bedel oo ka mid ha ku bedelanina horta ishtiraadi waa beec marka beecu markii kelimada beeca la isticmaalay shirihiya beeci luqadii carabiga waa isaga mid lahayn markii la isticmaalayo bacda kee la geliyaa waa shayga muxuu ahaayey midkan la yiraahdo markaad wax beecinaysid oo aad wax beecinaysid adiga wax beecinay shayga aad soo qaadanaysid baa bacda la geliyaa waxaa leedahay waan gaday bicitu addaara baan gaday sharaytu daara baan gaday ayada waad wareejisay waxaana la soo wareegtay bikadaa intaasaan ku gada waxa bacdaa gelisaa soo qaadata haddii saa marka lagu wada waxay noqon lahayd walaa tashtaruu biaayaatii aayadahayga muxuu ahaayey hasoo muxuu ahaayey intaad thaman ha ku gadanina qaliilan yar intaad aayadahayga soo qaadataan thaman yar ha bixinina macnihi saasuu noqon soo bixi maantana muraadku saas maahana aayadihii maaha waxay qaadanayaan waxay ka tegayaan baayada marka waa istibdaal waa bedelasho markii kelimadan bedela ama istibdala la ismaalo bacdu waxay gashaa shayga matruuga laga tago shayga maaquudkana waa la kor dhigaa saasay ugu fasirayaan thamanan qaliilan marka la yiri laba shay baa waxay rabtaa marka in la sharaxo mid waxa weeye thamankaas muxuu yahay waxa la leeyahay intaad asaga qaadataan aayadaha ka tegin waxaas maxay oo nimankan ay sameeyeen way soo qaateen midda kale qaliil maxaa loogu sheegay markaan ogaano waxay qaateen baan ogaanaynaa qaliilkaas macnihiisa muxuu yiri marka ilaa taktumuha aayadaha qarinina khawfa fawaati ma shaygii tagidiisa ka baqid aad ka baqaysaan darteed ha u qarinina shaygaas oo taakhuduunahu aad min safalatikum dadkiina hooseeya ka qaadanaysaan oo raacsan marka way wadaadaynayeen maaliyad culus baa soo galaysay nimanka marka horta samanka la leeyahay warooyinkaas ha u xilanina waa carada inay ka odayaal ahaayeen oo xoolo iyo raatib ku lahaayeen ma yaryaha marka kaas maya xoolo badan bay ahaayeen qaliilan marka maxaa loo yiri wax adduunyaa sida iska waa ciwadan yasiiran min addunya waa kii addunya waxa la dhaafsaday markii loo fiiriyana wixii wax si baaqi noqon kara ma ciqaabkoodana wax u dhiman kara ma wa iyaaya fattaquuni aniga iga baqa khaafuuni fi dalika kaas iga baqa duuna qayri aniga qayrkay kaasoo inaad waxaas aayadahayda ku bedelataan cidaan aniga ahayn ha uga baqinina attaqwa iyo rahbadii iyo cabsidii iyo khawf iyo wixii dhamaa khasho waa isla wadan mid bay leeyihiin walaa talbisuu takhlidul xaqa alladii xaqiha ku darinina labasadu markii caynteeda la kordhigo ficilka maadiga waa ku dhex darid isku dhex darid wala labasnaa iyadoo la tadciifiyo wala labasnaa iyadoo la tadciifiyo calayhim maa yalbisuun haddii la hoos dhigo bacdana labisa ficilo laga dhigana waa labisashadii kow marka maxay labasa markay tahay waa yafcilu bay cayntii kasray ku imaanaysaa waa kan mudaarici walaa talbisuu ha ku darinina kale yafcalu bay ku imaan talbasu ha xiranina taas noqon atakhlidu waa ka marka ugu fasir alxaq alladii anzaltu calaykum korkiina aan ku soo dejiyey xaqaas ha ku dhex darinina bilbaatili baatil ha ku darinina bacdii marka maxaan ka dhignay ilsaaq oo baatilkii iyo xaqii meeshu ku yaalay baad baatil kula qoraysan taas ka tirtirtaa markaas dhex isu dhigtay saas noqon kara وتكتموها قرننا الحق حقينها قرننا وأنتم تعلمون حالة أكتهين إنه حقيهينها قرننا ونعتم بالباطل الذي تفترونه أدنكم فافركين إنسان وأد أبورا إنسان ولا تكتموا الحق قرننا نعتم محمد وأنتم تعلمون حالة أكتهين أنه حق سوى حقه معنى هذه مركب معهن مفهوم أدنكو أجها قرننا
laakiin qofkan ogeyn inuu qariyo waa u furan tahay lagama wado yani markaanay sii falxun tahay markaanay sii falxun tahay ujeedku waa saas taktumuuda laada uu soo qadarana wuxuu kugu tusinayaa wowdu cadaf inay tahay laa talbisuu wa taktumuu ha qarinina ma nasbisana buu rabaa inuu kugu baraarujiyo oo wowdii waawalmaciye intii laga dhigo la yiraahdo walaa talbisuu alxaqa ha ku darinina bilbaadili wataktumuu aadna qarisaan alxaqa xaqiina aad qarinaysaan ha isku darinina buu macnihii soo baxay laakiin mid waa samayn kadhaan ilaa macnaha ka soo baxay macnahaasuna macno soconhay halkaas hore marka waxaa halkan looga reebaa niri inay dadkii dhumiyaan awalna naftooda inay dhumiyaan dadka dhumintay dhumiyaana labadaas sifa maadaamay ahaanaysaa labadiiba ilaahay sharxay wa antum taclamuuna wa aqiimu salaata wa aatu zakaata warkacuu maca araakiciina salluu maca almusalliina buu yidhi rukuucda waxaa laga wadaa salaadii oo dhan kuwa tukanaya muxammadin iyo wa asxaabihi iyo asxaabtiisii kuwaas la tukada markaas waxaa la yidhi irkacuu maca araakiciinadaas maadaama salaad lagu fasiray maxaa juuskaas loo cabiro kuligii looga cabiray waa la ilaalinahayo munaasabo jidhay munaasabadaas maxay ahayd ayaga salaadoodan rukuuc lahayn si ay ku cibaadaysan jireen marka salaad tamaam la imaada jamaacana weliba kula imaada oo salaada saas ku ilaaliya ataamuruuna annaasa wuxuu yidhi wanazala waxaa degay fii culamaa'ihim culimmadoodii waxaa ku soo degay wa kaanuu culimmadooduna waxay ahaayeen yaquuluuna inay dhahaan liaqribaa'ihim qaraabooyinkooda almuslimiina ee muslimiinta baa waxay ku dhihi jireen hoos ahaan ugu dhihi jireen usbutuu warhay ku sugnaada calaa diini muxamed diinkiisa ku sugnaada fa inahu xaqun weeye saasay dhihi jireen waa araada mid ka mid laakiin ka ugu muhiimsan waxa weeye taasu ilaa maadaama aan qiso saxiixa lagu sugi karinin inayba tahay towraadii baa leedihiin dadkii amraysan waryaa kitaabkiina qabsada baa dadka ku leedihiin haye kitaabkii in la qabsadaana waxaa keenaysaa in waxa ku yaala la oofiyo nebiga la rumeeyo ilaa nebigii buu kitaabku sheegay naftiinniina marka waa ka ilowdeen oo adinku qabsan maysaan adinkiina waa dadkiina waa amraysaan arrintaasuna arrin caqliga ku fiican ataamuruuna annaasa bilbiri biliimaani bimuxamed waa tafsiirkiisaan suu ku wada watansawna anfusakumna ma iloobaysaan buu ilahay yani waa arrin xun tatrukuunaha ilmaanka waxa weeye wixii iyadoon laga warhayn in la sameeyo haddii marka qofku uu hilmaan wax u sameeyo mukallaf ma yahay dambi ma ka raaca waa maya see loogu canaantaa su'aalaha imanaysa waa hilmaansan yahay marka taas maanta in loo jeedo ku tusiya macno kale in loola jeedo tatrukuunaha waa ka tegaysaan naftiina kasbaad uga tegaysaan falaa taamuruunaha naftiinii bihi ma amraysaan birigii iyo daacadii bilbiri daaca waa ku soo sheegay birigu waxaa la yidhaahdaa addaacatu baa la dhahaa waxaa kaloo la yidhaahdaa biriga sicatul khayri muxuu ahaaye khayrkii waasic noqonshaysa sicatul macruufkii ixsaankii waas ballaarashadiisa saa daraadeed baa dhulka baan badda ahayn waata la yidhaahdo barri baa la leeyahay macnihii buu ka socdaa ahoo sacatul macruuf ixsaanka waasicnimadiisii buu ka socdaa bariga waxaa kaloo loo isticmaalaa asidqu runtii barra fii yamiinihi dhaartiisii buu ku run sheegay labadaas macno buu leeyahay watansawna anfusakum tii marka maxaa laga cabiray hilmaanka haddii wax la hilmaamo waa laga tegay soo maaha tegitaan baa laga wada su-aashii baa marka imaanaysa marar badan aan isku baraarujin jirnoo ahayd watatrukuuna anfusakum soo lama dhihi karin maxaa looga bayray oo ayadoo tatrukuuna loo jeedo nisyaanka loo cabiray xikmadda marka ku jidhaa waa kaa ku baraarujinahayo lianna siru hada tajawuz al-ishaaratu ilaa anna tarka maa dukir waxaa la sheegay in laga tago oo naftiisa qofka uu amri waayo wuxuu dad kale amrihayay laa yanbaqii an yasdura can alcaaqili qof wax garanhaya inuu ka soo fulaa munaasab maahan ilaa nisyaanan hilmaan si aan hayn inuu uga soo fulo munaasab baysan ahayn ujeedku waa saas waa taasaa lagu baraarujinaya afalaa tacqiluuna warmawiinan caqli aynan garanaynin suu'a ficlukum ficilkiina ba'iisa fatarjicuuna markaas aynan noqonaynin markaas fajumlatu nisyaani hilmaanka jumladiisa waa ka tegideebaa maxalul istifaamil inkaari istifhaamtu istifhaam xaqiiqaa maahan sidaan wayba yeeleen war ma yeesheen lama weydiinayo waa inkir saas inaad yeeshaan waa inay ka soo furtay mana habboonayn wax inuu ka habboon ma aha meesha loo socdaa maxay tahay ma dadki inay amraan baa la diidan yahay maya waa inay naftooda ka tagaan waa meesha istifhaamta u socotaa
yacni arrintaasu caqligii miyaa inan ka anfisan wax caaqila wax ka soo fula kuma ay fiicno. taasu marka waxay ku baraarujinaysaa qofku marka uu dadka wanaagga amrayo waaninayo asagoo naftiisa inuu waansanaado. haddii kaleeto waxay yidhaha mafaasid badan baa ka imaanaysa. mafaasidaasoo ay ka mid tahay munkarkii inuu dadka la qumanaado oo ay yidhaahdaan ninkii sida la ogaa noo waaninayay wixiina samaynaya meel buu wax ku ogyahay. cilmigaas uu leeyahay waxaan xun kuma dhiiradeene waxaanu dhibbaysa yeesheen ummaddii marka wax waa ku faafahaya. waxay kaloo keenaysaa faafitaankii ummaddii ku faafan maxaa ka imaanahaya in lagu daydo wixii dhib la'aan markaas lagu daydo. wuxuu ku yidhi sheekh cabdinuur macalin maxamuud raxmatullaahi tacaala calayhi nin baa wuxuu la dardaarmahayo buu nin markaasuu wuxuu yidhi niyow wadaad hadduu tuko ku yidhaahduu yidhi tuko xilliga uu biyaha isku dhaqahayaan arkay dhibaatadeedu hadduusan dhibaato meel ku ogeyn xilligaa biyo iskuma dhibaateeyeen. laakiin wadaad waxbix hadduu ku yidhahdo wadaaddo balaayo un sheegay waxbixi hadduu ku yidhahdo ha ka yeelin hadduu wax bixin khayr leedahay isagaa bixin lahaa. qofkii marka waa is saamaynayaan. waxaa dhacaysuu yidhi qiyaamada sidii maxamed ibnu waasic taabicigaas laga wariyey inuu yidhi niman baa hoos waxay u jalleecayaan jannada ku jiraa dad naarta ku jiray hoos u jalleecayan hoos dhuganayaan. markaasay intay la yaabaan bay leeyihiin war jannadaba waxaan ku galnay wixii adinku aad noo sheegteen baanba jannada ku galnay adinka maxaa idinku dhacay waxa waa inii sheegi jirnaye waanan ku camalfali jirin bay leeyihiin. wastaciinuu bisabri udlubu lmacuunata waxaa dalbataan buu ilaahay yidhi kaalmaysi calaa umuurikum umuurtiina u kaalmaysta. umuurtii qaraaraydoo layna amray madaxtinimadiinay ka tanaasul ahayd waa arrin khatar ah. qofka waxaa kaliya oo caa'iqa weyn oo ku dhacdaa waa xubu riyaasa madaxtinimada jacaylkeeda waa xubu dunyaa maalkii soo gelaya qofku inuu fiiriyo madaxtinimaduu jeceliya atbaacdiisii buu ka baqayaa inay ka bayraan hadduu xaqii u tanaasulo asaga wixii uu hore u yaqaanay kasoo horjeeda ama inay xoolo dhaafaan waa labada soo maaha wuxuu u xisho labadii baa ilaahay kala teliyo war bal naftiina arrintaas waa qaraar tahay inaad sabirtaan oo xabistaan u kaalmaysta. wastaciinuu udlubu lmacuunata calaa umuurikum bisabri alxabsi linnafsi la xabiso calaa maa takrahu waxa ay dhibsanaysa lagu xabiso. ijtihaad cibaadadii lagu ijtihaadaa kadmil qaydi carada la qariyaa xilmi dulqaada alixsaani ila almusii qofkii ku bi'iyey loo ixsaan sameeya waxyaabahaas oo dhan macaasida aa ka sabirtaan. wasalaati salaadiina muxuu ahaay kaalmaysta ayadana afradahaa salaaduu ilaahay bidikri sheegida ku gooni yeelay ayadoo ka mid ah wixii lagu sabrahaya lafteeda soo geli lahay tacdiiman lishaanihaa shaanigeeda la weyneynayo. wa fi lxadiisi waxaa marka ku sugnaa kaana sala allahu calayhi wasalama nebiga suuban wuxuu ahaa idaa xazabahu nebiga suuban haddii uu fekeriyo amrun amar hadduu fekeriyo dhibo baadara ila salaa salaaduu u dedegi jiray. saa daraaddeed nebiga suuban waa ka yidhi wajucilat quratu cayni fi salaa ishayda faraxeeda salaada ee muxuu ahay baa la yeelay. marka kurba kugu timaado salaada badi buu macno noqonaya kurbadii waa fiidmaysaa. saas waxaa la yidhi saa darteed sayiduna cabdullaahi ibnu cabaas baa waxaa loo soo sheegay geerida qutham oo walaalkiis ahaa qutham ibnu cabaas horay buu ka istaagoo salaad bilaabay intuu aayaddan akhriyey. waqiila waxaa la yidhi alkhitaabu lilyahuud hadalkiisaasu halkee marka ku socdaa mufasirka wuxuu hadalkan ka wadaa hadal caama oo lagula hadlahayo dadkii dhammaa muuminiinta ahaa. tafsiirka laakiin rajaxan waa midka uu daba mariyey waa reer bani israa'iil waxa gooni loola hadlahayay inkastoo macnuhu uusan aayad kastoo lagula hadlay ku qaas ahayn. tafsiirkan uu daba mariyey weeye midka markaas rajaxan. wuxuu yidhi waqiila waxaa la yidhi alyahuudu alkhidaabu hadalku lilyahuudi buu u sugnaaday lamaa caaqahum limaa shaygii daraaddeed buuna ugu sugnaaday lamaa caaqahum dhe markii uu manciye ayaga can aliimaani iimaankii uu ka manciye asharahu mamanaantii adduunye jacaylkii iyo waxbu riyaasati madaxtinimada jacaylkeedu fa umiruu markaasaa la amray oo bisabri sabri baa la amray wahuwa sabrku waa assawmu baa la yidhi li'annahu waa aalaada midkoodka rajaxan waa sabirkii caadiga ahaa oo soom iyo wax kastaba soo gelaya. li'annahu yaksiru saa wuxuu jebinayaa soomku ashahwata ijtihaaduu jebinayaa iyo mamanaanta يعني qofkii xoola hungurigii wasalaatina waa la amray bisabri dii ku cadaf li'annahaa tuurisu lkhushuuca saa khushuucay la xashiisaa watanfi alkibra kibirkana waa xashiisaa. salaadiina marka waa saasoo qirada lagu akhrinahayo baa qofkii xusuus u yeelaysa salaadii. saa darteed qirada salaada waa in la hagaajiyo ee suurad gaaban oo kaleeto markii uu dadku mashquul yahay maahane
sin suurada macnadii ay iyaga dhanba macna laga faa'iideyn laakiin waana ku saabsan qiso ku saabsan in lagu aqriyo wa innaha bu ilaahay raayi salaadiina la kabiiratun thaqiilatun kabura wuu weynaaday xagga jismiga wax loo isticmaala haddii xagga da'da laga rabo kabira wuu weynaaday kan la yiraahdo facila kabira wuu weynaaday wabidaaran an yakbaru waa facila marka ciyaalkii inay weynaadaan adinku ka degdegaya xoolahooda boobinina haddii marka kaburadii calaa lagu tacdisiiyo calaa kabura calayhim kabura cala almushrikiina maa tadcuuhum way ku culus yihiin culays buu noqonaya thaqiilatan waa ku fasiray waxay ku culus tahay salaadu ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucsan korkooda maahane ilaadu waa istithna mufariqa saa khaashiciinta ciddii laga soo reebaya lama sheegin khaashiciintu salaadii maahan waxa culusna maahan labada shay oo lasoo sheegana waa labadaas mustathnaa minhu midkoodna ma noqon karo marka mustathnaa minhugii waa maqan yahay oo innahaa lakabiiratun calaa kulli axadin cid kasta way ku culusta ila alkhaashiciina maahan ila cala alkhaashiciin mustathnaa minhugii maadaama uu go-an yahay istithnuhu hadduu mufariq soo ma ahan istithnuhu markuu mufariq ahaana waxaa shardi ah nafyi inuu ka horeeyo isagoo nafyi ka horeyn isna mufariq darabtu ilaa zaydan ma socon karo maa darabtu inaad tirahdid maahan marka kaburadii wuu cuslaaday baa macnihii ku jira wuu culus yahay yacni lama imaan karaan ayadoo la yiri bay ka dhiganta lama imaan karaan ma daa'imi karaan ayadoo la yiri macna ahaan baa nafyi meesha ku jira kuwa khushuucsan baa ilaahay sifaadkooda sheego muxuu ku sheegay alladina yadhunnuun yuuqinuun buu ku fasiray marka dhannigii yaqiin horta waa loo isticmaalaa yaqiin dhannigii horta waa loo isticmaalaa ha loo isticmaalee maanta ma yaqiintii baa lagu fasiraa mise waxaa lagu fasiraa dhannigii baa loo daayaa waxay ku xiran tahay annahu mulaaquu rabbihim taa sida lagu fasiro haddii lagu fasiro mulaaqaadku ilaa waa kulmitaan wax alla wixii aad la kulantay labada dhinac buu ka yimaadaa qof ciddaad la kulantay iyaduna waa kula kulantay soo ma aha marka kulmitaankaas maxaa laga wadaa bay ku xiran tahay haddii kulmitaanka lagu fasiro bilbacthi bay kula kulmahayaanoo waa la soo bixinayaa qiyaamay tegayaan saas hadday tahay hadda waa yaqiin marka saa qof muuminu taa kuma shakisna haddii laga wado biljazaa'i bay kula kulmahayaan ilaahay wuu abaal marin xumaan iyo samaanba waa yaqiin baa lagu fasiraya haddii lagu fasiro mulaaqaadka kii xaqiiqiga rabbi bay la kulmayaan waa arkayaan saas haddii lagu fasiro annahu mulaaqu rabbihim bay la kulmahayaanoo way arkayaan ama mudaaf lasoo qadaroo yidhaahdo mulaaquu thawaabi rabbihim rabbigoo thawaabkiisa ay la kulmayaan ilaahay baa thawaabinaya waa la abaal marinayaa iyo waa la kala duwan yihiin cidda waxunna waa lagu abaal mariyaa uu geystay wax sanoo geystana waa lagu abaal mariyaa soo maaha laakiin thawaabintu waa wixii wanaagsanaa keliya labadaas haddii lagu fasirana dhanniga meeshiisaa loo daynaya saa qofka muuminkaahu ma isku huba cabsi buu ku jira yadunnuuna waxay malaynayaan annahum mulaaquu rabbihim rabbigooda inay arkayaan oo la kulmayaan munaafiqii arki mahayo gaalkiina ilaahay ma arkahayo muuminiintuna arkidaa rajay ka qabaan waa midda la culus laakiin yaqiin maaha macnuhu halkaas marku xiran wa annahum ilayhi raajicuun ilaahay xaggiisay u noqonayaan fi laakhirati fayujaaziihim ilaahay xaggiisay u noqonahayaan daliil tusin mayso jiho ilaahay jira u noqonayaan sidii mujasimadu aaminsanayn ee waa meel ilaahay keliya uu ka abaal marinahayo fayujaaziihim markaasuu ilaahay ku abaal marinahayaa يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم انتي بالسعودية بالشكر عليها بطاعة انتي بكفسر وأني فضلتكم بعد باميشان كسيادي فضلدي وحويان لبا معنى لو استعمالها فضلة هنبو صولما هنبو فضلة هي فضل الزياد لبدا صلو استعمال لبدا من فعل كان فعله هو كدحيا مد كستا فضل وهنبوبي وسوهر يفضل وزيادة ولو استعمال marka ay tahay fadalada hanbada huna facila bay la goonita fadila markii la fadila markii la dhaho waa tii hanbada ahayd kaliya mid kale ma noqoto wa anni fadaltukum adinka in fadal ay aabaakum abayalkiini waan fadal ala alaalamiin baan ka fadilay makhluuqaadkii baan ka fadilay caalim waxaana ilaahay leeyahay quraanka kuntum khayra ummatin ummadana asagoo nabi maxamed la hadlahaya ummad adinka ugu khayr badan marka saa darteed labada hadal isma diidana quraanka ilaahay waxa laga wadaa caalami zamaanihim xilligooda caalamiintooda ama waxa laga wadaa waa mudlaqan xilli kasta
caalamiintii joogtay maca ummadaana laga fadila laakiin fadilidaan caam ahayna arrimo ku saabsan waa intii bad la jeexsiiyey manni iyo salwigii loo soo dejiyey waa intaas bay fadilidu marka ku tacalluqdaan ama waxaa la khasisahayaa cidda laga fadilay baa waqtigooda lagu khasisahayaa ama waxaa cidda laga fadilay waa la camimahayaaye waxa lagu fadilaa markaa la khasisahaya waa intaas waxay dadka filayaan wattaquu khaafuu yowman laa tajzi jazaadii wuxuu noqdaa markay thulaasiga tahay waa qadaa wuu guday shayga ajzaa haddii la yidhahdo afcala lagu keeno wuu kaafiyey waa loo isticmaalaa inkastoo thulaasiga ayana leeyahy waa loo isticmaalaa marka macnihii muxuu noqonayaa laa tajzii ma gudayso fiihi maalinkaa fiigiisa nafu gudi mayso can nafsin naf kale xaggeeda shay-an waxba ka gudi mayso maalinkaas waa kuma huwa yowma alqiyaamati weeyaan yowmanti waa mafcuul toose laa tajzii jumladii sifa maadaama laga dhigay raabid maalinkii ku xidha sooma rabto waa fiihi raabidkii marka saas kusoo qatan walaa tuqbalu minhaa bitaa'i weliyaay labadaba waa lagu wariyey ee minhaa waa la akhriyaan leeyahay minhaa naftaasna shafaacatun lagama aqbalayo shafaacadu waa shafcigii iyo isku lamaanayntii bay ka socotaa sidaa darteed tirada isla eg waxaa la leeyahay shafci waa tira isku lamaan gurigiisa qofku markuu qof guri uu ka shufcayso sida fiqi oo kale guri laba qof oo shurka ku ahayd intuu midkiisii qaybtiisii iibsado qofkii yimid soo qofku kama shufcaysan jirin shufcaa lagu magacaabay yacni milkigii ka cusub buu kiisii kusoo biiriyey waa damigii shafaacaduna marka neefka geela ahoo waxay yidhaahdeen ilmuhu daba jooga waxaa la dhahaa shafci ilmuhu daba taagan waa daba jooga shafaacadu markaasay macnahaasay ka socotaayo qofuu isku lamaaniyo oo meel la taga oo meel mariya ma uu helayo ay laysa lahaa shafaaca fatuqbalu markii la yidhi naftaa shafaaca laga aqbali mahayo maxay u muuqan kadhaa waa loo shafeecayaa laakiin shafaacadii baan la aqbalin bay u muuqanaysaa mana ahanoo gaaladii famaa lanaa min shaaficiin bayba leeyihin wax noo shafeeca haba yaraatee mabalihin ujeedkii markaasuu kuu fasiroo yidhi waxaa laga wadaa laysa lahaa shafaacatun shafaacaba ma leh fatuqbalu markaas la aqbalaba marka horeba shafaaca famaa lanaa min shaaficiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi dhow soo qadar famaa lanaa min shaaficiin walaa yuukhadu minhaa cadlun naftaasna furasho isfurato fidaa'un lagama aqbalahayo cidli markii la yidhahdo waa shayga u rarna oo loo rarna cadliguna waa isfurashadii iyo midkii u dhigmay asagaa laftiisana waa la dhahaa laakiin cidli markii la yidhahdo midka shayga u dhigma u kaasi walaa hum yunsaruuna yumnacuuna kuwa min cadaabillaahi looga hilinayana ma ahan looga gargaarahayo marka halkan laga qaadan horta nafta laga qaadan mahayo inaan wax shafaaca la yidhaahdaa aysan jirinin muctasilada ra'yiga qabta laakiin waxaa la ogyahay nabiga suuban inuu shafaaca leeyahay dadka saalixiinta huna inay shafaaca leeyihiin baa la og yahay oo axaadiistii caddaynaysaa aayado kaleetana lagu fasiraa aayadaha yacni waa lagu fasiraa axaadiistiina toos bay u caddaynaysaa marka saa daraaddeed waxaa laga wadaa laa tajzii nafsu naf muuminad ah waan can nafsin naf kaafirad ah baysan shay aan waxba ka gudi karin waxba uma qaban karo ee shafaacadii inay sida kaleeto u anfinsan tahay maan subxaana allah ربنا